soo sagal maaha sagalay bal ii waran halkeed ku ciidaysa maanta gobolkee magaaladee طلبان سيلي مو wanaagsan tahay may xafiiski ma jooga maanta waa ciid mubaarak kula caam antum bil khair halkeed joogtaa adiga doonayna inaan ogaado halkaad joogtad ku ciidaysa maanta assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh aad baan idin salaamay asxaabtayda qaaliga waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caam antum bil khair meel kasta aad joogtaan aad baan idin jecelahay aad baan idin salaamaya isku soo laabasho wanaagsan maanta barnaamij aad u qiimo badan baan idin wadnaayo macal ciideyn baan idin leenahay horta meel kasta aad joogtaan waxaan ugu horeysiinayaa xaaskayga qaaliga waalidkay iyo guud ahaan ehelkii qaraabadii aan leeyahay ciid mubaarak iyo asxaabtayda runtii igu taxan aadka iga warsugaya barnaamijku ka qiimo badan yahay baan la socodsiin doonaa waxaan leeyahay kusoo dhawaada Axmed Daawud official channel oo aan ka soo salaamayno isla markaana waxaan idin wadnaa barnaamij ciidii iyo challenges ku dhex jira waxa ila daadiinaya barnaamijkan ay gula jiraan saaxiibka Cabdiraxmaan Xarago waxaan leeyahay kusoo dhaw صاحب أحمد آد بضمة صنطهي ما شاء الله ومركي بوه ريسي يعني كسر مقالية كلام كاجا أحمد داود وفشيا آد بضمة فرحسنا هاي ما شاء الله يعني وحويا وحويا ما نفع حياتنا انتهاي ما البيدنا انتهاي آد بضمة فرحسنا يعني كلام كاجا صار موضوع يعني دمان أصحابه وطحن يأتوا بصوص عطيبة وهلا يحيي مبارك لما في الكاجا في الكينا يعني أصحابتي دي أصحاب ترى وحلا هسبوك عيد مبارك سود ولا أصحابي برنامج كان هو سمعت أصحابته برنامج كمان أصحابته هنا وحوي برنامج إنه لا عيدينه أنت هينو كقعدنا وحنا قبصنا challenge بقول حجرة مركب برنامج كان challenge بقول حجرة وحوي أنا جي صاحبي وحنا كلا دورني لما مقالو يسوي حق قبصنا مركب روعه أنا وحنا قبصنا يبورم مركب أصحابته أنا وعي نور دمبن من شنقف بان هاي سنة جانس فرصة marka shanta qof ee aan garaacayo waxa laga doonayaa inay ku ciideen boorama marka waan garaaci doonaa hadii boorama ku ciideen guush aniga raacaysa insha Allah hadii laakiin ay burco ku ciideen oo shantiisa qof ee u garaacaba ay yiraahdaan burco ku ciideyna maanta joognaa guushu saaxiibkayga raacday waxaan rajaynayaa guushu dhankeena inay tahay insha Allah waxaan isleeyahay boorama lagu wada ciiday insha Allah hadda start haya aniga sidoo kale waxaan doonay gobolka raga gobolka burco oo ay asxaabteedu ku badan tahay sidoo kalena aan rajeynaya insha Allah shanta qof aan soo xushay inay oran doonaan kaasi gobolkaas aan fiirinaa sidoo kalena waxaan leenahay dhamaantood iyo shanta qof aan soo qaadanayba halkan kulli wada arki doonaan waa maasantay Cabdiraxmaan oo asxaabtina waxaan leeyahay hadii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar Axmed Daawud subscribe noo saar insha Allah sidoo kale like iyo share iyo comment-igaba waliba idinka laftiinu halkaad ku ciideen insha Allah nagula soo wadaaga qaybta hoose comment-iga waanu idin soo jawaabi doonaa insha Allah hadii aad idinka laftiinu boorama ku ciideysaan iyo hadii aad burco ku ciideysaanba labadaba nala soo wadaaga insha Allah waxaan ku socon doonaa barnaamijkeena qiimaha lahaa السلام عليكم عليك السلام وفي عنتها ولا الحمد لله aad baa loo wanaagsan yahay xaafadda iyo dhammaan reer qismo wanaagsan ma sha Allah soo sagal maaha sagalay bal ii waran halkeed ku ciidaysa maanta gobolkee magaaladee sagal matiiniya waa Cabdiraxmaan Xarago weeyaan اوكي المهم انا اسكو شيء دونا ان شاء الله magaalada aad ku ciidaysa magaceeda nala wadaag insha Allah kulli barnaamij baan wadnaa ana gadaal kaaga sheegi doona marka burcad joogtaa ayo walaashay aad baad mahadsan tahay waxa weeyaan waxaan ku leeyahay ciid mubaarak baan ku leeyahay adiga iyo dhammaan familka insha Allah taala ayo walaal mahadsanid sorry asxaabta anu san horaba idinku sheegay dadkan yani la hadlaya waxa weeyaan waa dad waqti hore ay ku dambeysay isla markaana aan si lama filaan aan kaga dhigay marka wad arkaysaa oo qofku way garan weeyay laakiin haddana ujeedada aan ka lahaaba waxay ahayd inay nala wadaagto marka si halka ay ku ciidayso laakiin
su-aashaydii koobaad oo maadaama barnaamijka furay sidaas baan ku gartay qofkii koobaad ee aan macno wuxuu ku ciidaya markaasi Burco weli guushii markaa aan hogaaminaya waayahay asxaabay waa markan iyo markaygii ninkii xarago Burco iska shubay ana waxaan isku dayi doonaa inaan garaaco markaa dadkii aan doonayay inaan bal ogaado halkii ku ciideen una hambaliyeeyo oo mabruuq idhaahdo ciidan iyo ciideedaba inay ku gaadhaan bashbashiyo barwaaqo markaa hadda waxaan garaaci doonaa insha Allah asxaabteennii ila socda insha Allah waxaan ugu horeysiin doonaa insha Allah waxaan ugu horeysiin doonaa Cabdikariin waa wiil aan wada shaqeyno runtii reer Hargeysa ah ma ogi halka uu ku ciiday laakiin waxaan aad u jeclaysanayaa inuu Boorama ku ciidaan u badinaya markaa isaga ayaa inoo sheegay halka ku ciiday insha Allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة. هو قام يورن عبد الكريم. عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير. عيد العافية عيد العافية كل مرة. هو قام يادبن ونكسنا فاهم الكي جدك يا أصحابتي. ما شاء الله الناس ونكسين. ما أنت هالكيد كل عيد يا عبد الكريم. هرقيسات ما تكون عيدي. السلام عليكم. عليكم السلام. إيه ولا الحمد لله. الحمد لله. سمونا أكسرين. نكسنا ولا الحمد لله تبلونا أكسرين كودي. أيه. هرت إنك بصوص سلامية وحوية وعبد الرحمن عبد الرشيد عبد الرحمن هالرجل. هذا بقى بل ما أنت هلقيت في عيد السحب داي. والله برعة شوقة. برعة شوقتها. ما شاء الله. كل برنامج من دوبيني برنامج كاسو أحبال أصحابتي دمانتها إني بعقب عيدي يعني إن كله وبهرين وحب الله بركاس عيد مبارك. إن شاء الله وصوت هذا الدونا أدبا محسن تولى المعنى. وحن قراعي دونا هذا عبد الحكيم بان سجنا قراعي دونا وويل أنا والله شقينا سجل لفتيسو ما شاء الله مركال كوك عيدي بان ويدين دونا بلينو بورو مكو عيدي يينو مالك لكو عيدي كلنا مركز waa mashquul ka waan ku celin doonaa hadii nagu soo celiyo arkayna waan bedelanaya marka assalaamu calaykum عليكم السلام. عبد الرشيد aad baan kuu salaamay waa Axmed Daawud عبد الرشيد ma maqlaysaa ما مقليسا walaalo ciid mubaarak kull caam wa antum bil khayr halkeed joogtaa maanta halkeed ku ciiday Booramaad ku ciiday ما شاء الله adigii iyo familkii iyo asxaabtiiba waxaan idin leenahay ciid mubaarak kull caam wa antum bil khayr weli hoggaanka ana haya qofkii labaad qofkii saddexaad baan garaacaya markaana inan baan garaacayaa wuu ii safe garaysan yahay inanka Khaalid baa la dhahdaa kulli Khaalid badan oo Burco ku nool baa ii safe garaysan mana xasuusto qof yahay laakiin dad waqti hore ugu dambeysay weeyaan hadda marka waan ku soconayaa Cabdiraxmaan ma istiri hooyooyinkii lugaha lagaga xidhnaaye aan magaaladaba ka baxayn ayaa chance ku qaaday السلام عليكم. وفي عنك ولا الخالد ما شاء الله. سمونا أكثر. الحمد لله وهالريح كلها يا مركب هراء عيد مبارك. خالد قبل كده عيد سمانتهم. قبل كده عيد سام. برعو. ما شاء الله أنا كنا وحنا هاي مركزي كل وادي سيف كريسن تاي إن ديار قرن الله هني وندريميا كل أنا سبكا شيء دونا ده واحد كله عيد بارقلا أيوة الآن بعد ما سنتها ونقرأ صعب دونا إن شاء الله hadda waxaan eegi doonaa insha Allah oo socon doona qofkii saddexaad iyo magaalada uu ku ciiday iyo waliba waxaan u rajeynayaa in isna Boorama ku ciido barooyin wada eegina insha Allah كله لما قبلنا صوت فونكا
telefoonka lama qabanayo waan ku celin doonaa insha Allah number kale aan garaaci doonaa waa marka telefoonkaygii ugu dambeeyay kulley labadaasna waan ku celin doonaa insha Allah inaga qaban waayay kaasna waynu aragnay oo waa laga yaabaa inuu mashquulsan yahay inuu soo celiyaa suuragal ah haddii aan bedesho oo aan markaa number kala garaaco dabcan way dhici karaysaa oo aynu weydiina markaa qofkaas halka ku ciiday iyo halka uu rajeynayay inuu dee dabcan uu joogaba waynu weydiin karaynaa marka maasha Allah haddii number kale aan garaaco okay no insha Allah asxaabta qaaliga aad baad mahadsantihiin sidaad halkan noogala socotaan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada midlay insha Allah taala wali barnaamijka inuu ku guda jirnaa oo waliba gabadho ku dhow insha Allah taala mar labaad waxaan ku celinaynaa bal nala wadaaga halkaad ku ciidayso gobolkaad ku ciidayso ama wadankaad ku ciidayso wadayidba aad baa mahadsantihiin videogana like saar soo asxaabta kala gaadhay insha Allah taala mahadsantihiin marka asxaabay barnaamijka waxaan ugu talagalay inaan runtii idinku dadaalino assalaamu calaykum salaam seelayahay ma wanaagsan tahay may xafiiskii ma jooga maanta waa ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr halkeed joogtaa adigaan doonay inaan ogaado halkaad joogtad ku ciidaysa maanta halkeed joogtaa adigaan doonay inaan ogaado halkaad ku ciidaysay maanta halkeed ku ciiday barnaamij baan ku jiraa Saleebaanow marka waxaan wareysanayay dadku halkii ku ciideen asxaabta iyo ehelku marka halkeed ku ciiday maanta ma Hargeysaad ku ciiday mise Berbera mise Burco Hargeysaad ku ciiday waayahay waxaan ku leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr aad baan saaxiib ku soo salaamaya waan ku soo qabanaya bacda barnaamijkan hay markana waxa weeyaan waxaan garaacayaa qofkii ku qaaliya waa qof ay wada shaqeyn naga dhaxayso ma garanayo maanta halka uu ku ciido insha Allah ugu dambeyn markii uu dambeysana aan ku ogaa markaa baro insha Allah haleela socdo leader waa fiican ismu wanaagsan ciid baarig baan ku leeyahay leader aad baan ku salaamaya marka ugu horeysa awalan bal gobolkeed ku ciidaysa maanta gobolkeed ku ciidaysa gobolkee gobolkaad ku ciidaysay la wadaag leader gobolkaad ku ciidayso Burco ما شاء الله برعك ورس ديل لو قديدي برعك ورس ديل لو قديدي ما شاء الله تجي عن وغرف بدل لو قديدي ليدر الحمد لله إلى إلى ما تذكره ما شاء الله هؤلاء يشقوي كينا سقرف بدل بيوصلنا سوما ما شاء الله آد بعض ما سنتها ليدر waxaan kaala soo xiriiri doonaa dhanka WhatsApp-ka hadii alla ka dhigo ciid mubaarak baan ku leeyahay adiga iyo dhammaan familka leader aad baan mahadsantahay kulley aniga badanka asxaabtaydu waxay leeyihiin Hargeysaan ku ciidnay waxaan ku ciidnay qaarkoodna nagamay qaban boo mashquulsan yihiin kuwii naga qabtay badidoodu booramay ahaayeen laakiin asxaabtayda badinkoodu waa aniga iska sii og dee Hargeysa inay ka baxeen baan u haystay oo qaarkood Burco qaarkood Berbera qaarkood Boorama aad baad Axmedow ma sha Allah asxaabta qaaliga wad ku xigtay sida qorto badan daawaysan insha Allah taala kulley marka la eego shaqo qof ay wacay iyo aan shanta wacay farq weyn baa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan wuxuu isagu garaacay dadkii dambeeyay asxaabtiisa update ka ahaa laakiin aan waxaan wacay dadkii waqti hore ay ku dambeysay si aan markaas farxad ciid wada wadaago isla markaana ay la wadaagaan insha Allah inay gobolkaasi aan doortay ee Burco ay ku ciideen alxamdulillah badankoodu waxa weeyaan waan soo sheegay in markaa barnaamijka wado isla markaana markaas ay ii sheegeen in Burco ku ciidayaan halkaana aan markaas aan ku guuleystay afartii qof ama shantii qof Cabdiraxmaan aad baad mahadsan tahay guusha adiga iskale mar haddii shantii qof reer Burco ay noqdeen walow aan u badinayo dadka aad garaacday wadadaad aan isleeyahay talow miyay xaalad caafimaad bay gobolka u jooga macnaha waxaad ku xulatay ilaa hadda haddii aad ku nasiibisay oo dabcan ay si dar ilaahay oo dee nasiibkaaga dartii ay Burco ugu ciideen waxaan leenahay ciid wanaagsan kullu caam antum bil khayr guushina waa ku siiyay saaxiib
laakiin aniga asxaabta aan dooranaya had iyo jeer ama dadka aan koolalka soo saaray waxaan qabaa waa dad aan mar walba u badinayay uun inay gobolka ama wixii tegeen ama ay u tegi doonaan ay mar uun ama ay hadal hayeen laakiin ma garan karo dadna inagama qaban qaarna way naga qabteen oo Boorama ay joogeen intii badneyd Hargeysa marka taa micneedu kama dhigna inaan dadkii dee ma garanaysaa reer Boorama aan soo xushay sidaadoo kale laakiin anigu waxaan ka dhigay federation صح حتى waxaa ku jiray qaar reer Berbera ku ogaa oo aan garaacay bal inay Boorama ku ciideeyeen kale aan hubinay marka taasina dee barnaamijkaygu way qurxinaysay marka waxaan leeyahay nala socda barnaamijkan baniisa wax kale maaha maadaama maalmihi ciida lagu jiro isla markaana aan rabno challenge ahaan inaan barnaamijkan u bedelno saan markaasi farxadda asxaabteeda familkayga aan ugala qayb qaadano maasha Allah si qurux badan bayna nooga dhacday dhammaan dadkaan soo qabanna aad baan u salaaminaa aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan anna waxaan leeyahay kulligiin waxaan idin leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khayr nabad kula ciida familiyadiina dhamaantiin aad baynu salaameynaa madaxda qaranka aad baynu salaameynaa waalidiinta aad baynu runtii ugu hambalyeynaa carruurta iyo ciroolahaba waxaanu leenahay aad baan idinku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaad oo ku soo dhawaada Axmed Daawud channel nagu xidhnaada subscribe noo saara nala socda insha Allah isku soo noqdo wanaagsan iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh aad baad mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته